su-aashaan ku weydiinaya waxa waaye sidee u aragtaa dib u heshiisiinta lagu qabanayo magaalada xamar بسم الله الرحمن الرحيم dib u heshiisiinta waxaan u arkaa wax aan shaqaynayn oo macnaha dadkii lagu qaldan rabo aniga waxaan u arkaa Soomaaliya halkeed in kitaabka quraanka iyo sunnada lagu xukumo ay soo laabtaan maxaakiimta lixda bilood waddanka dejiyay markaas oo nabadda la helay sidaas aan u arkaa xal Soomaaliya macnaha ku macnaha ku gaari karto kitaabka Ilaahay iyo sunnada lagu takale in ishak dawladdan kumeel gaarka iyo dhibaatooyinka ay u geysanayso shacabka Soomaalida dawladdan waxa uu arkaa dawlad macnaha soo wadatay in cadawga ummadda Soomaaliyeed kuleynayso ummadda Soomaaliyeed dhacayso boodayso dawlad uma arko waa burcad waa inay ummadda masaakiinta dadka dhacdo boobto anu arkaa dawlad maaha dawladtaas waana qabiil dadka dhacay boobay